sideedaba qofka muslimka ah ee bani aadamka wuxuu u baahan yahay qalbiga inaan laga jebin ee qalbiga loo dhiso niyadda in loo dhiso oo qalbiga loo dhiso nolosha wax badan baa qofka ku imanaya xanuun baa imanaya baahi baa imanaysa colaad baa imanaysa geeri baa imanaysa baqdin baa imanaysa farxad baa imanaysa shaqo la'aan baa imanaysa dagaal baa dhacaya mushkilada iska imanaya deyn baa imanaya waxa u baahanay marka inaan qalbiga la iska jebin oo la isku qalbi wanaajiyo dadka qalbiga qofkii hawli ku timaado inaan la oran khalaas waa u dhamaatay kaas waan lagu dhaga hadlin oo saa lagu oran laakiin niyadda loo dhiso sidoo ku hagaagi lahaa marka haddaynu inagu ummad muslima nahay soomaalina weli gaar ahaan nahay hawlaha badan ee mushkiladaha ina haysta wax badan baa qalbi jab ay nagu keenaan iyadoo hawsha culayskaasi jiro baynu haddana innagii meeshaynu qalbiga isu dhisi lahayn baynu isu sii qalbi jabinaynaa markaasaa qofkii wuxuu noqonayaa qof jugtii ku dhacday iyo dhibtii soo gaadhay walaalkiisii barbar joogay meeshii laga rabay inuu niyadda iyo qalbiga u dhiso in markii uu yidhaahdo waa khalaas tusaale ahaan hadda maalan qof baa xanuunsanaya dhakhtar baa la dhigayaa mise waa xanuunsan baa loo tegayaa xanuunkaasaa haya maxaa la odhanayaa hadhow marka xanuunkaasoo kale hebel iyo hebel buu ku dhacayoo kama kicin ninka uu ku dhaco ka kacay lama aragba ninkii jiifay ee xanuunsanaya dilida ka kici maysid maxaad u malaynaysa khalaas waa sii qalbi jabay soo maaha laakiin waad bogsanaysaa insha allah xanuunka iyo jirjileeca looma dhinto adayga iyo caafimaadka laguma waaro waa lanaanaysaa allaha bukaanka keenay baa caafimaadka keenaya khayr bishaarayso adoo ka kacay oo jamicii masaajidka ku soo tukanaya oo danahaaga qabsanaya oo diin iyo dunyaba ka shaqaysanaya baad arki doonta qofku wuu farxaya marka niyadda wanaagsanaanis marka wax kasta waa tusaalahan baan uga jeedaay qofkii carruurtu ka dhintaan oo kale inaan la odhanin maxaan ku idhaahdaa waxa weeyaan kaasi ilmaba u noolaan maayaan haddii ilma u noolaanayn hore ugu noolaan lahayn carruur ama noolaan mayso kii xaasasku ka dhintaan in la yidhaahdo ka ayaan la guursaday naagtuu guursado waa dhimataaye dhowr baa ka dhintay yaan loo dhowaan in la yidhaahdo isagii marka dhibaatadii ku dhacday dhegxumadaa uga daran dhegxumadan kale lagu hayo baa uga daran kii daymooybay oo kale kii maxaan ku idhaahdaa baahan oo kale kii aan waxba garanayno u baahan aqoon loo kordhiyo kale inaanu dhibsanin kii wax ku dhaamay wax weydiinayo inaanu dhibsanin wixii aqoon iyo cilmi uu ku dhaamo uu u sheego kii macallinka ahaa ama maadi ha dhigo ama diini ha dhigo qofka uu wax u dhigayo inaanu niyadda ka jebin oo aanu odhan maxay waxba baran mayse damiin baa tahay adiga u malaynmaya weligaa inaad qof wax baranaya aad ilmihii yaraayoo ninkii macallinka ahaa ee uu ku dayan lahaa ee waalidkii labaad ahaa ee lagu aaminay loo keenay ma waxbar baa la yidhi ilmaha mase qalbadda ka jebay baa lagu yidhi ilmihiiyo markaa casharkiina ku yara adkaaday waalid macallinkiina qalbiga ka sii jebiyey hadhow niyadba uma haya waxbarashada ilmihi waayo dee wuxuu ku yidhi damiin baa tahay ardaydii oo maqlaysa fasalkiiyo buuxu wuxuu ku yidhi adiga damiin baa tahay wax fahmi maysid maskax dhagax baa tahay waa caynkan sax maaha waxaa ka mid ah ninku islaantiisa iyo xaaskiisa oo kale noloshu ka dhaxayso inuu ka ilaaliyo hadallada qalbi dilka ah iyo qalbi jabka ah oo markaa gabadha ama akhlaaqdeeda khuseeya ama diinteeda khuseeya ama nasabkeeda khuseeya gabadhii uu qabay xaaskiisa ahayd baa laga yaabaa inuu nasabiyaddeeda caayo aabbaheed caayo oo hooyadeed caayo baa dhici karta ama qabiilkeedaba caayo ama tabci ay leedahay uu ku caayo waa xaaskiisii ilaahay u xalaaleeyey awlaadda alla ka siinayay tabci bini aadamku dawaa'icdu waa kala duwanta meeshuu qalbiga u dhisi lahaa oo soo caynkan maaragtay caynka sameeyo waalidkii waxaa laga yaabaa ilmihiisii qaarkood ilmuhu dee isku mid noqon maayaane inuu maxaan ku idhaahdaa niyadda ka jebiyo waxaasoo dhan marka looma baahna ninka uun siyaasiga ah inuu shacabku xukumo qalbadda ka jebiyo madaxweynuhu saasoo kale ninka sheekha ah ee dadka wax u akhrinaya ee diinta u dhigaya ama wacdinaya waa inaanu ummadda
إنه رسالة ربا مسكحة كدسو وإلهي كحره لكن ما إنه قلبه كدل الله مرة